السلام عليكم أصحابتي شرفت لكم سو dhawaada barnaamijkeena reaction-ka ee musalsalka Habboon. Xalqadii ugu dambeysay oo 18aad aad u xiiso badneed qaybtaas oo 18aad bulshada dhan waxa waaye aad u saameysay waayo waxa ka baxay nin oo aabo u ahaa familka oo qisada ka dhacday iyo jilay weyn odayaasha jilayaasha ah odayga ugu fiican aaba ducaala ka dhintay marka saameyn aad u weyn oo ku lahaa filimka bilow ilaa dhamaad marka hadda filimka markuu ka baxay wajigiisa labaad aan arki doonaa insha Allah filimka oo yeelo doono waayo si qaabka hore oo ku soo socday qisadii oo dhan asaa ogaa gabadha Habboon asaa soo helay oo wadada ka soo qaaday haddana wuu dhintay qisada filimka dhan aan isbedeshay hadda xoogaa hadda filimka xamaasadoo si yeelan doonaa marka bulshadii dhan aad u horta filimka u daawanayaan hadda filimka musalsalka Habboon marka qaybta hadda oo 18aad oo halqadan ugu dambeysay kadib xamaasad inuu si yeelan doono oo maleena filimka waayo waxa ku muuqanayso ninka qisadii dhan ka warhayay ogaa la socday ama meesha ka baxay marka hadda wajiga kale oo yeelo doono waa arkaynaa qaybta 19aad la sugi doonaa qaybaha hadda ugu dambeeyo oo asaga oday jimcaale ku jiray aad u xiiso u soo lahaa marka hadda kulli qaybta dambe waxa laga yaabaa familka hadda sheegtay Habboon inay dhaleen inaysan dhalin waayo Jamaalana hadda ku raad jiro xataa DNA-ga iyo ka daba tagaynaa ay dhaheen marka xamaasadiisa aad u sii kordhay waayo haddana waxa ku sii cadaanayso in filimkan oo qiso hirgashay ay tahay oo dadkii oo dhan ka gadmatay waxa ku cadaanayso waayo dadkii oo dhan hadda jecel aadina u la socdaan hadda haddii microphone aad dhex martid suuqa aad dhahdid musalsalka Habboon ka waran qaybta hadda marayo caadi kaaga sheekeynayaan waayo filimka dadku way la qabsadeen waayo hadda filimkan haddii filmo kale oo musalsal kale oo Soomaalida ay bataan macquul waxa filmaantii shisheeye ajnabiga ah in qadka ay ka baxaan taasna waa noodan marka bulshada Soomaaliyeed waxa waaye hadda aad ugu soo jeesteen qisadan musalsalka Habboon marka qaybtan oo hadda ducaale oo ku dhintayna qaybaha kale ka dambeeyo inay si xamaasad weyn inay si yeelan doonto la rajeynaa marka waan wada arki doonaa ducaalana jilinkiisa jilimada ugu fiicnaa waxa kamid ah jilinka hadda aan wada arkayno jilinkan kale abuweed laakiin mar walba gabadheeda ahayd ahaan doontaa taas isma bedelaysaa iyo qaybtan kale ismaana rabeenaa siiso idinka diaspora daatiin dhaqanka Soomaalida dhan waa iska ilowdeena gabar markii la soo doonanayo geeda loo soo fariisan jiray gogol loo soo geli jiray maqaayadaha ma igu weydiinaysaa qaybahan dhan aad ugu soo baxsaday qaybta hadda ugu dambeysay ee geerida qaybtaas isbitaalka markay imaanayaan reaction-ka ay bixinayaan jilayaasha caadi ma aha qaasatan maamooyinka labada maamo si fiican u jilayay oohinta qaabka dareenka shucuurta leh ay muujinayaan adiga murugada waa qaab cajiib ah qaabkaasna waa laga shaqeeyay waan ka xunnahay intii aan dadaalkii waan dadaalnay tiirab ayaa u timid marxuum ducaale waa maxay
bajaajka xataa qaabta bajaajka ninka wacyigelina ku jirto bajaajlaha xataa wuxuu leeyahay gabgabta adiga miyiga wadaa iyo oo leeyahay odo ducaale intoos soo fuulin bajaajka waayo wuxuu ka dareemayaa fudfudeed zaa'id bajaajlaha uu u doon sheeganaa bajaajlihii sidii uu kusoo fuulaa waayo wax waaqici oo ka jiro bulshada dhexdeeda waaye bajaajlayaasha badankooda ayagoo hunguriya raasanayna oo hunguriya bursanayna ku dhahayo haddana nafsadaada halis gelinaya adeer soo baxana adiga mooto aad maaba wato miyigaa wadataa ibis adeer caruur ah caana ii baahan anaa ku wadaa si tartiib ayaan u wadaa soo bax ilma hadday ka caana kaa sugaayaan nasaan maa mooto loo wadaa miig inaa wadaa loo malayaa bisinka maya adeer tartiib haddaan u wadaa soo bax tartiib u wadeeya hadday caruur caana kaa sugaysa tartiibaa loo socdaaya عاوز سكن أي إن شاء الله taliin ka waran bajaajkaada sidaan u wado wadidaada maan hortaada waa qayb cajiib ah wacyigelina ku jirto waayo odo ducaale hadda isagoo filan oo dhintay mugta dad si sax bajaajliye u dileena jirto sidaas oo kale ah waayo qofkan darawalka ah bariis raasana oo ku leeyahay haddana tubaaka taabuu balaayo oo saarana asoo jah wareersan xashiis soo cabay oo jah wareersan oo bajaajka kaxeena meeqa qofoo ku dilay hadda arrintan filimka dad badanaa ka xumaanaya ayadoo reality ay dhacdaa oo sax ayadoo sax ay dhacdaa marka taasna waa wacyigelin xataa hoos waxay kusoo qorayaan title yar oo subtitle yar waxay kusoo qorayaan oo tubaakada ma fiicno caafimaadka dhibtaa marka taasoo kale waa wacyigelin fiican filimkan oo musalsalkan habboon markaan leeyahay musalsalaadka Soomaalida gacantooda ay ku sameysanayaan waxyaalo badan ay kaga faa'iideysan karaan markaan leenahay saasoo kale waayo hadda message-kaas raaciyeen waa message sax ah bulshada ka dhex jiro oo sax ah aan loo wada baahan yahay in lagu baraarugo marka arrintaasna waan ku taageersanahay Astaan TV iyo qolada filimka directoreysay iyo jalayaasha cajiib waaye waa la soo xulay dad aad iyo aad loo soo xulay oo waqti la geliyay qarasha la geliyay marka keep going qaybtan Axmed iyo Jamaal waa qayb cajiib ah markay oo soo wada baxayaan guriga markay soo baxayaan isku toortoorayaan marka qaybtaas gaariga xataa markay soo koraan waa ka dareemay in hadallo culus ay isku tuurayaan labadooda marka qayb cajiib waa qaybtaasna nala fiiriya Habboon waa gabar aad u wanaagsan qurux badan aqli badan oo kaaras ka ah intaas way tahay Habboon inta nolosheedu raan aqaana uma qalin waxaas oo dhan inay ku dhaxan dadka wanaagsan imtixaankooda iska badan runtii aad baan uga xumahay Habboon inaan mar dambe isbaranay waxay u qalantay in nafta loo horo waa maqal reerkaaga inay wax badan ka caawiyaan Habboon maalmihii dambe fadhigaan ugu kici doonaa reerkaaga haddaan joogi lahaa bilowga hore waxaas oo dhan uma dulqaateen waxay dhibaatadan kala duwan ee uga imaanaysa dadka ugu dhawaan maxaa sameyn lahayd marka qofna uma ogolaadeen in masxuun u fiiriyo hooyadeeda iga noqon lahayd waxaan noqon lahaa ninka dunida ugu nasiibka badan hadallada ay isku tuurayaan xataa waa hadallo cajiib ah waa weerar Axmed mar walba waa weerar hadii ka hortagin intaas xilliga adag ayaan isbaranay ay dadka Habboon way ka duwan tahay kuwa kale oo dhan kuwe
xogtaada waa hayaa laakiin habboon sidaa malaynaysa maaha habboon ka hor aniga waa isma lahayn waxaa la kulmi doontaa gabar si anoo kale qalbiga u degto way adag tahay inay rumaysto midaas sababtaa gabdho badanaa kugu dirista qalbigaaga inay degaan ma tahay mase qofkan shalay ahaa maanta ma ihi qof cusub ayay garigta habboon anagoo dhan waxaan ka cararaynaa qaladaadkii shalay aan galnay markaas waxay sababaysaa inaan xilmaamno waxyaabihii hore la dego aysan ahayn khaladaadkaaga kuwii ka fududyihiin habboon waqti xadirkan uma baahno xasuus hore in dib looga celiyo iyo madax wareeg go-aanka ayadaa leh ee aan ku wada dadaalna sida reerkeeda ku helleen waa arki doonaa wejigii kale uu yeelan doono haddana jamaal waxaa loo badinaa asaga naftigiisba in uu qadka ka baxo waa arki doonaa yarkan oo axmed laleeyahay ayaa ku haysto saaxiibtiis marka waa arki doonaa asagana oo is sharxayay qaybta ugu